الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. walaalyaal waxaan kusoo dhex jirnay barnaamijkii sacaadada ama barnaamijkii xasiloonida ama طمأنينada. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay maalinta qiyaamaha ama maalinta la dhimanayo يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. markay culimada ay tafsiiriyeen qowlkaas waxay dhaheen qowlkaas waxa weeye laa ilaaha illa allah. ilaahay annaga iyo qof walbo muslim iyo qof walbo oo laa ilaaha illa allah dhaho ku suga qowlkaas. inta naga dhimatayna allah u naxariisto, inta noolna ilaahay qaatumada ha u soo biyo, inta naga xanuunsana caafimaad allah noo siiyo, sharta iyo shaydaanka iyo wax iyo balaayada dhow iyo balaayada fogna allah naga qabto. ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan barakada hana siiyo, kuwa loo dembi dhaafana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. qof walboo murugaysan ama qalaq ama cabsi ama wax ku noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka qabto. waxaa jira walaalayaal oon laga qarsan karin indhaha in qur'aanka la isku tufo way fiicanta, in ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa la aamino way fiicanta. laakiin haddana ummaddii oo ku yaacayso meelaha waxaa marnaba aana fiicnayn, marnaba aana ku fiicnayn inaad ka safarta magaalo una safarta magaalo adigoo sheegana adoo aadayo ama dhahayo qur'aan baa is soo saari. culimmadina kamayna hadlin barnaamijkaas, ma fiicno. war adi isku akhri oo adi ilaahay yaa kaa xigo oo isdeji oo waxaan lacaga mataqaanaa aad dirayso masaakiinta u qaybi. nabiga sal ll ly slam wuxuu leeyahay daawuu mardaakum bisadaqaat, dadkiina xanuunsan sadaqa ku daaweeye. war meeqaa baahan, meeqaa duu maqaraba fiiri, duu maqaraba marka qur-aanka leeyahay waa qof qaraabanimo u saaxiiba. yatiiman daa maqaraba, marka waa agoon oo haddana qaraabo u saaxiibay baad 100 u tuurtay. muxuu soo ugu farxayaa si aan caadihin. isbitaallada la aadayo oo aad iyo aad aygana u batay, lianna dadkii waxaad leedahay qalaq kale iyo cabsi kale iyo humuum kale iyo howlo kale lagu furo. quraan isa saar, qofkan noo bil ilaahi ii soo bari dheh, adkaaraadka ii soo qordhe, adkaar hebel iyo adkaar hebel iyo adkaar hebel ii soo qordhe, ha kuu akhriyo qur'aanka. laakiin howlahan ka badbadiska ee ma fiicno, lianna nabiga sala allahu calay wasalam jibriil ayaa ku akhrin jiray oo wuxuu dhihi jiray bismi illaahi urqiika min kulli shayin yudiika allahu yashfiika. bismi illaahi urqiika, ilaaha magaciisa ayaan kugu akhrinaya. min kulli shayin yudiika, wax walboo ku dhibaya. bismi illaahi urqiika min kulli shayin yudiika allahu yashfiika, allah subxaanahu wa tacaala ku caafinaya. ya qofka ku caafinaya waa allah. waxaad ka tegaysaa maraykanka shiikh baa jooga, waxaad u socotaa magaalo heblo waxa lagu caafimaadaya ma aho sheekh hebel waxa lagu caafimaadaya waa kitaabka ilaahay iyo qur-aanka ilaahay. weligeen annaga dad muslim aan ahayn, soomaali baan ahayn, markay dhibaato imaado culummadan dhihi jiran qur-aan u akhriyo. laakiin dhibaatada hadda nagu soo korartay waxaa weeye magaalo heblaan ka tegaynaa oo magaalo heblaan tegaynaa. ruux ha aaminin, hal ruux ha aaminin. qof walba oo kitaabka ilaahay yaqaan walow kaana ilmahaada ha ahaadeene geesaha igala fadhiista dheh
oo igu akhriya leh beenta iyo propagandada iyo xasidnimada iyo mataqaanaaye iyo yacnigana aan iska yarayno dikriga ilaahayna aan badino sadaqadana aan badsanno wallahi inay xaaladana isbedelayso waa laa shaka tirakoobyo la suubiyey kitaab oo mataqaanaa aad caan u ah oo la dhaho daci ilqalaq wabda ilxayaat nin oo gaal ah iska leh diil kulunji la dhaha marka ninkaas daci ilqalaq wabda ilxayaat iska daa qalaqa iyo murugada nolosha dhabteena bilow wuxuu leeyahay ruux walbo oo mataqaanaa 10 qof oo Mareykanka ka mid ah waxaa mataqaanaa handadayo ama xaalad adag ku ah in uu mataqaanaa uu burbur ku dhaco mataqaanaa maskaxeed aad bay u murugaysan yihiin waa dadka aad maqasho oo isdilo ismarjiyo dabaqa iska tuuro baabuurta isku dhigo maxaa dadkaas ka maqan maxay raadinayaan jirkan wuxuu ka kooban yahay siday culamaa nafsiga sheegayaan diintanadana noo sheegayso ruux iyo jismiga wuxuu u baahan yahay raashin ruuxda waxay u baahan tahay soon waxay u baahan tahay salaad waxay u baahan tahay dikriga ilaahay bay u baahan tahay marka waxaa weeye jir aan ruux lahayn waa ayaga إلهي سبحانه وتعالى وقلت لهم إني ميت وميت سعناي الولايات المتحدة وأمريكا قلق وحاوي والولك ودلاية كوبات أو أمريكيين تدلاي كواس أول لكل مايو جيردود الذين يلقون حتفهم مركا وحائز دلي أم إزدلايو البرخس والبو عالمك 3 مليون أمريكيين أو دمنايو الذين يموتون من إجراء الانتحار وحاول قفكم مركو أساقا يستلو يفوق عددهم وحي تردو وحي كرونا في ساعة وي متقانا كبضانتا كوي عاد ودمنايو وي كبضانتا oo u dhimanayo cudurrada kala bedelan u dhimanayo baabuurtii wax ku dhacayo way ka badanta natiijada iyo mataqaanaa iyo tirkoobyada la suubiyey qalaqa waxa weeye wax ugu daran oo mataqaanaa weerarka mataqaanaa ku hayo hawsha lista Mareykanka bas ma aha dowladaha galbeedka oo dhan iyo shuuciyiinta cumuuman shuuciyiinta ugu badan shuuciyiinta marka la dhaho waxa weeye waxaan la diinta sida jeenayska iyo mataqaanaa nimanka la dhaho ruushiyaanka iyo nimanka shuuciyiinta waxay ishaartay daraasad la suubiyey mataqaanaa oo iclaan ka dhigtay منظمة لو يقانو منظمة الصحة العالمية وحاوي هو هيدا عافماتك أدونك دولها شيوعيين أكثر انتحارا في العالم وهو بطن ازدلك نفط وحاسا أنا وعررينا وحاسا إلمهنا يمتقانا نلجوغان وحاسا إلمه أفر إيا اللباتن كسع معلمين وهرتاغن نلغي يابا غدك بعد إنه أسدلو أيا إلمي وحو أخرناه محو سو صايرة مركا نكاس وحضران وأسوكال وسو صايرة أسدلاي وحان فيري قفكا مركا دادكا إن إله لغو حرو إن دادك إله كو حرمان وحاني كبد بادايان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر وإنه قبل اسم رجينيسو يقولك اسم رجينايو أما سنت عباي وإنه أقادو إن قيامه غير كدنبيسو
ya maalin la taagan yahay bas baa kun mataqaanaa kun bay u dhigmataa marka nolol dheer waxaan hadda waa xayaat dunyaawi waa tii dhoweyd xayaatul barzakh oo ma 8,000 oo kun baa wax alla waxay taloween iyo intay noqon doonto ayaa naga dambaysa allah na badbaadiye nolol dheer xayaatul barzakh waxa ka dambayso aakhira wax ka dambeeya malaho wax dhammaanaya ma aho wax hadday mar mataqaanaaye ugu dambeeyaan wax dhammaad lama aho taas marka maxaan isku wareeraynaa marka maxaan isku qaribaynaa maxaan intixaar u suubinaynaa bis waxaa kaloo ogaataa wiilka intixaarka suubinaya ama gabadha isdilaysa ama wiilka isdilaya waxaa ogaado number 1 waa isdesha waxaad ogaataa inaad cadaabka ilaah u diyaargaroobayso waxaad isku dishana lagu cadaabay suu rasuulku noo sheegay marka qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo aayaadkiisa iyo kitaabkiisa rumaysan oo ilaahay aaminsan isma dilaayo kuwa isdilo waxaa ugu badan 35 jirka 40 jirka baa ugu badan waxay leeyihiin daqiiqad walbo dhowrkii daqiiqaba waxaa laga yaabaa 40 ilbiriqsi inay xawaali milyuun wafaad u dhaco fiiri waxaa weeyo daqiiqad walba 40 baa dhimanayso cumuuman waa si la sheegay marka xawaali sanadkiina meeqa weeyo waa milyuun wafaad sanawiyan waxaa waa hay'adda caalami oo u xil saaran xagga caafimaadka ayaa sheegtay waa sanadkii 2020 hadda naga soo dhamaaday intaasoo qof ayaa la qabanayaa oo hawsha ku guda jirto oo mataqaanaa barnaamijtii fulin rabto aan soo gabagabayno cajalkan aan ku soo gabagabayno ilaahay subxaanahu wa tacaala شيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه وحليه الفريد في ذكر الدعاء وحليه مركو إله سبحانه وتعالى ليه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أدومدي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أدومدس محل قصة بالله يا أيتها النفس المطمئنة نفتان إلهي أوصي دكنا شدي ارجعي إلى ربك إلهي هذه الله من نساء راضية مرضية أدور هلئه لكان رالية إلهي سبحانه وتعالى راليه نغضو رالي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وحان قلبني ونفتنا ذي الشيطان بكاته وحسانينا فمن الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله تعالى وحي طلعي وانه iyo ina barnaamijka mataqaanaa si dhiirigelisaan iyo aad si shargalisaan addaal ala khayrka faaciliyo anaga hilmaamino dhiirigeliyaashanada tihiin allah in barakeeyo meel walba joogtaan allah in xifdiyo maasha allah aad baan in salaamayaa barnaamij kale oo macaan oo akhiradan iyo adduunka naga faa'iido nool ayaan soo wadnaa allah in barakeeyo allah in xifdiyo shukran